بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. noloshu waa dugsiga ugu weyn ee uu qof wax ka baran karo waxana la yiraahdaa iskuulada caadiga ah intaad 10 barato ayaad imtixaan martaa halka nolosha intaad imtixaan marto aad 10 ka baranayso daraasad lagu sameeyay dad waayeel ah oo muddo bila ah la booqanayay oo la weydiinayay su'aal ah 10kii ugu weynaa ee ay noloshu ku bartay muxuu ahaa ayaa markii la isku celceliyay qodobadan dhalay waa mar kale yaayaan jaamac nuux ku soo dhawaada mowduuca qodobka koobaad ma jiro wax waaraya wax noloshan sida uu yahay si ahaanayaan ma jiro isbedelo joogto ah oo la dareemi karo ama aan la dareemi karinna way dhacayaan dib iyo dheefitoona ma waarayaan ee wax walba inta aad haysato waxaad kala hadhi karto kala hadh waxaad ka kororsan karto ka kororso wax kastaana waa ku meel gaadh ee waxnaha ka daba dhicin oo haysa siinin qodobka labaad weligaa qayladhaanta qalbigaaga ha iska indhatirin waxa la yiraahdaa qalbigu wuu ka ildheer yahay oo uu ka aragti fog yahay isha iyadoo ay sidaa tahay weligaa waxaanu qalbigaagu ku ursamayn oo aanu raalli ka ahayn ha ku xasilin oo guuxa hoose ee codkiisa ha iska indhatirin codkaas markasta gudahaaga ka yeedhayana ha isdhaafin qodobka saddexaad markaad cid wax weydiisanaysid ha isu dhul dhigin ee adiga oo isla sareeya oo sharaftaada iyo karaamadaada aan luminayn oo aan baryootamayn qofka aad wax uga fursan weydo weydii ugu dambeynta cidda ay gudista xaajadaadu ay ka soo fulaysaa waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga ayaana qofkan kuu soo marinaya ee hoos ay isu dhigin oo ha baryootamin adigoo inaad baahidaada hesho uun ku dadaalaya qodobka afaraad inta aad xasilan tahay dhaqaalaha ku soo gala u kaydso maalintii kugu soo aadan ee albaab badani ka soo xidhmi doonaan xaaladda nololeed ee degan ee aad maanta ku jirto kulliba kuma waaraysid oo aad waayi kartaa ee xoogaaga dhaqaalaha ah ee maanta ku soo gala isku day inaad xoogaa ka mid ah kaydsato si aad berri u garabsato oo hawlaha adag ee kugu imanaya aad uga baxdo qodobka shanaad xilligan aad ku jirtaa wuu tagayaa weedhani hadal ahaan way u sahlan tahay si haddii aynu u fiirsanno waxa laga dareemayaa inaynu gadoon iyo isbedel joogto ah ku jirno haddii aad faraxsan tahay waqtigan wuu ku dhaafayaa haddii aad baahan tahay waqtigan wuu ku dhaafayaa haddii aad hantiilo tahay wuu ku dhaafayaa haddii aad sabool tahay wuu ku dhaafayaa xaalad kasta oo aad ku jirtana waqtigu wuu soconayaa ee adigu waa aragnimo kala hadh markasta oo waqtigaasi ku dhaafayna waxaad dareemaysaa inaad jeclaysanayso oo aad xiiso u hayso waqtigaas ku dhaafay hore ayaa looga hayay Hitler waynu jecelnahay tagtada maadaama uu waqtigaasi dhamaaday oo uu tagay oo aynu ognahay inaanu soo laabanayn haddii uu soo laabtana waynu nici lahayn qodobka lixaad ha ka warwarin oo culayskooda haysa saarin waxaanad maareyn karin oo aanad waxba ka qaban karin waxa jirta xaqiiqo qaraadh oo ay noloshani leedahay oo dadka qaar inay aqbalaan ay diidaan waana in waxyaabo badan oo dhacaya ama noloshaada ka dhexdhacaan ama deegaanka kugu xeeran ama dadka kaag dhowba ee aanad awoodad ku maarayso oo aad wax kaga qaban karto haba yaraatee lahayn inaad ka murugooto oo culayskooda isa saarto maxay waxaas sidaas u noqdeen aad tiraahdo oo aad isku weynayso waxaas dhacayaba waxba kama qaban kartid adiguna ciil iyo qoomamo ayaad u dhimanaysaa culays aanad xamilayna waad isa saaraysaa qodobka toddobaad farxadaada iyo reynreyntaada qof ha ku tiirin inta badan dadku dhalinyaradu ha u badnaadaan waxay shuruudo u dhigaan farxadoodu siday ku imanayso iyagoo dhacdooyin ama shakhsiyo ku xidhaya oo isku qancinaya in marka hebel ama heblaaye la joogaan ay farxad helaan inta kalena uga balbaasi u dhacay ama marka ay shay cayiman helaan ama ay dhacdo cayiman la kulmaan ay farxad helayaan taasina waxay aad u adkeynaysaa oo ay dalow ama ho ku ridaa farxadooda oo marka uu qofku yiraahdo marka aan guursado ayaan farxad helayaa inta guurkiisa ka dhimanba si kasta oo wax ka farxiya ay la kulmaan guurka dabadiina ubad iyo hawshii adduun ee kale marka la gaaro aanay farxadaasi mid joogto ah noqonaynin qofkaasi isaga ayaa ugu talagalay noloshiisa inaanu toddobaadyo isku xiga aanu farxad ku noolaan oo marba haddii uu farxadiisa iyo reynreyntiisa shakhsiyo iyo dhacdooyin ku xidhayo isaga ayaa farxadiisa seeto iyo dabar ku xidhay qodobka sideedaad isku xeer saaxiibo oo finiya axdi leh oo daacad ah haba yaraato tiradoodii
saaxiibtinimada dhabta ahi waa kayd aan qiimo lagu cabiro lahayn ee ku dadaal in saaxiibadaada dhabta ahi walow mid iyo lababa ha ahaadaane ay noqdaan kuwa idinka dhaxeeyaan gacaltooyo iyo oofin dhab ahi oo aad isku xisaabtantaan noqdana dad ay muxibbo iyo ursamaani ka dhaxayso. daraasadaha qodobkan lagu sameeyeyna waxay soo bandhigeen in dadka nolosha ugu farxadda badan ee aanay ahayn hantiilayaasha iyo kuwa iyaga la midka ah ee ay yihiin dadka leh xidhiidhada saaxiibtinimo ay isku halaynta buuxda ka qabaan ee dhankiisa ay ku niyadsan yihiin walow saaxiibadaasi haba tiro yaraadaane. markaad imtixaan galaysid tusaale ahaan haddii aad niyeysato in maado aad 100% keento oo aad 98% keento maadadaas kuma ursamaanaysid oo niyadu kugu xasili mayso maadaama filashadaadii wax ka hooseeya aad heshay. halka haddii aad maadadaas filinaysay 70% oo aad 75% keento aad farxad inaad duusho ku dhawaanayso. lambaradu waa kuwii aynu naqaanay ee waxa kala duwan waa filashada. markasta oo filashada aad arrin ka haysato ay cirka isku shareerto oo aad weynayso waa markasta oo ay farxadaadu adkaato oo helitaankeeda aad ku kadeedanto ee weligaa filashadaada hoos u dhig. qodobka 10aad baro goorta iyo sida aad ku odhan lahayd maya. inuu qofku diidmo yeeshaa waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee uu qofku inta uu nool yahay uu qaado. qof aan diidmo lahayna waxa uu noqonayaa qof aan hogaaminta naftiisa gacanta ku haysan oo wax kasta oo loo soo jeediyaba si kasta oo aanu u doonayn haddana yeelaya oo aqbalaya. qodobka 11aad muuji jacaylkaaga inta aanay xeedho iyo fandhaal kala dhicin. innagu ka Soomaali ahaan waxaynu caado u leenahay in qofka aynu kalgacaylka iyo wanaagga u hayno aynaan badanka u sheegin ehelkeenna ha ahaado asxaabteenna ha ahaado amaba qof kale oo inagu weyn. jacaylkaas iyo kalgacaylkaas aynu u haynaa inaga qalbigeenna uu ku weynaanayaa qofkaasna haba yaraatee waxba uma tarayo maadaama aanu ogeyn qalbigaaga booska uu ku leeyahay. isku day qofka aad wanaag iyo kalgacayl u hayso inaad u sheegto micnaha uu kula leeyahay iyo heerka uu noloshaada ka joogo si ay isagana micno ugu samayso. qodobka 12aad waxba waqtigaaga ha ku dayicin cudurdaar iyo inaad sharaxdo sababta aad u samaynayso waxaad samaynayso. dadku waxay maqlaanuun waxay doonayaan inay maqlaan oo ay dhageystaan. khaladaad iyo gafafna way ka dhacayaan oo qof nool baad tahay wanaagyo badanna waad samaynaysaa balse haddii aad isku daydo inaad tallaabo kasta oo aad qaadayso aad sharaxdo oo aad dadka ku qanciso adiguna waad isgalaafanaysaa oo noloshan waxba kama qabsanaysid. qofku cudur daarayaana ma jiro oo sharaxaagaas sidiisa u qaadanaya. wax kasta oo aad qabsan lahaydna way ka dayacmayaan inta aad dad ku qancinayso asal ahaanna ma jirto sabab waxaad samaynayso aad dad kale ugu qancisaa oo qofka nolosha sida ay tahay u fahansani kuguma mashquulayo. ka kugu mashquulayaana haddii uu doonayo inuu ku fahmo horta isaga ayaa isfahmi lahaa oo nolosha fahmi lahaa iskiina wuxuu qabsan lahaa. markaa cillaha ku daalin ee wixii kula quman samee wixii kula qaloocdana ka tag cidna ha u cudur daarin cidna sharaxaad ha ka siin waxaad samaynayso. qodobka 13aad ogow caafimaadkaagu waa waxaad haysato waxa ugu mudan. caafimaadku waa waxaanay lacag goysaa jirin waa nimco iyo naruuro Ilaahay bixiyo. caafimaadkaaga oo wanaagsanaadaana waa waxa kuu sahlaya inaad nolosha hansare ka yeelato oo aad heer sare ka gaadho noloshaadana sida ugu qurxoon aad ugu raaxaysato. balse nasiib darro badanaa caafimaadkeena wanaagsan waynu luminaa oo dayacnaa marka aynu dhalinyarada nahay. marka aynu weynaanana waynu ka qoomamaynaa ee inta aad dhalinyarada tahay naftaada si wacan u daryeel. caafimaadkaagana inta aad haysato dhis oo kobci hana noqon kuwa marka ay weynaadaan ee ay waayeeloobaan ku qoomameeya Allah bal ma naftayda daryeeli lahaa oo caafimaadkayga dhowri lahaa intii aan ku loo farayay. qodobka 14aad dhisi riyooyinkaaga gaarka ah oo ka dhabayntooda u halgan. haddii aad sidaas samayn weydana qof isagu riyooyinkiisa dhistay oo u halgamaya ayaa ku shaqaalaysiinaya sidii aad isaga hankiisa u gaarsiin lahayd. inta badan waxa la yiraahdaa inaad cid u shaqayso ama aad shaqaale noqotaa waa inaad ku fashilantay ama aanad isku dayin inaad adigu samaysato haniye hiigsi ku gaara.
kadibna aad subax walba u kala hayso qof isagu hankiisa dhistay inaad subax walba u halganto sidii aad isaga u gaarsiin lahayd iyadoo ay sidaa tahay haddana dhallinyarnimadaada waa muhiim inaad shaqayso oo aad shaqaale noqoto si aad u fahanto sida ay nolosha shaqadu u kala socoto balse waa inaanad isku ilaawin ogow inaanu jirin qof dadka maanta tilmaaman ee adduunka libinta ka gaadhay ah oo heerkaas ku gaadhay shaqaalanimo uu bil walba dhammaadkeeda mushahar sugayay qodobka 15aad weli kaamuu tegin xilli aad ku bilowdo wax cusub han cusub yadidiilo cusub iyo fikrad cusub waxa jira xilli marka uu dacayiman qofku gaadho uu ka qoomameeyo alla bal ma waxa sameyn lahaa ama bal ma sida yeeli lahaa xilli riyooyinka qofkaasi ay hubaal tahay inay riyooyin u ekaayeen oo uu qofku dhaafay xilligii uu guntan lahaa inuu ka dhabeeyo iyadoo haddii uu isku dayo ay suuragal tahay taladu waxa weeye inta aad xoogan tahay ee aad tamarta leedahay ee aad dhalinyarada tahay ee aad hanka leedahay yeelo riyooyin aad u halganto qodobka 16aad ha ka cabsan inaad gafto oo aad qalad ku dhacdo waxaynu nahay aadami oo gafku qaab dhismeedkeena ayuu ka mid yahay waynu u samaysanahay inaynu gafno iyo inaynu wax saxnaba gafkuba waa qaab aad u haboon oo aynu wax ku baran karno casharada ugu muhiimsan nolosheenana waxaynu ka baranaa gafafka aynu ku dhacno inaad ka cabsato inaad gafto iyo inaad ka cabsato inaad fashilantaa waa labada caqabadood ee ugu waaweyn ee libinta iyo guuleysiga ishortaaga qodobka 17aad xooji markastaba xiriirka aad la leedahay Allaha weyn ee qaadirka ah ugu dambeynta wax kasta oo aad noloshan ku ahaydba dhankiisa ayaad ku dambeynaysaa oo isaga ayaad u laabanaysaa ee si horumarso wixii aad hadhow la tagi lahayd noloshaadana isaga gacanta ka saar oo waa kii abwaan hadraawi lahaa ka dooro adaa yaqaan ta dooro rabbaa yaqaan aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum